maamulka degmada Celifin ee gobolka Sanaag ayaa kormeer indhayn ay ugu kurgalayaan dadka reer guuraaga oo isugu soo hayaamay galbeedka degmada Celifin oo roobkii u dambeeyay ka daayeen iyadoo la kulanka bulshadaasi ku dhaqan deegaanadaasi lagu boorinayay in si nabad ah ku wada daaqaan dhul daaqsimeedka deegaanadaasi ayaa waxa kamid ah deegaanada ay kormeereen Cilmi Fadhigaab Siigadheer Kaanmaaweel iyo dhul daaqsimeed kale iyadoo kormeerkan ay qayb weyn ka ahaayeen ciidamada ammaanka xubno kamid ah golaha deegaanka ee degmada Celifin cuqaal waxgarad waayeel sidoo kalena bulshada ku dhaqan deegaanadaasi ayaa iyana soo dhaweeyay ballan qaaday inay kala shaqeynayaan adkeynta ammaanka ugu horreyn waxa halkaasi ka hadlay maayirka degmada Celifin Maxamed Aadan Digaale maayir ku-xigeenka degmadaasi Maxamed Jaamac Liibaan Hindi xogayaha dowladda hoose ee degmadaasi Cabdicasiis Xogsade maamulka tuulada Fadhigaab xubno isugu jira golahayaasha deegaanka ee degmada Celifin iyo Garadag cuqaal waxgarad waayeel maamulka degmada Celifin iyo Garadagba waxay u soo baxeen kormeer lagu soo indhaynaynayo laguna kuurgalayo xaaladda nabadgeliyo ee deegaamada Fadhigaab Cilmi Siigadheer Kaanmaaweel iyo eriyada u dhaxaysa eriyadaasoo raxmadii eebe alla ku shubay la isuguna soo guuray oo labadii beeleed walaalo ahaa ee dhawaan heshiiskoodu ka dhacay degmada Celifin ay isugu soo guureen la iskuna soo dhaxgalay si aanu soo ogaano una soo wacyi gelino xaaladda deegaanka dadkana aan ugu soo wacyi gelino in nabadgelyada ka shaqeeyaan wixii dhibaato ee deegaanka ka jirana meel looga soo wada jeesto markaan ka soo baxnay Celifin ilaa iyo Siigadheer waxaanu aragnay nimco mar haddii nabadgelyo tahay dhamaantii nabadgelyo yahayd dhulka raxmadda ee bamowda gaarin dhul la roob wacan baa helay dhul la roob kuma gaarin nabadgelyo hal ilaaliyo arintii nagu soo korodhay geela anagu maamul degmahan hadaan nahay degmada Celifin hawsha runtii waxaanu jeclaysan inaan xogaal ka noqono oo aanu soo baxno si aanu ogaano waxa jira iyo xaqiiqadu say tahay xaqiiqadii iyo say wax u jireen waxa nala soo arkay inuu la xaqiijiyay waayeelkii deegaanka Fadhigaab iyo eriyadeeda oo ka kooban labada beeloodba u nimina waa arin hawlgal nabadgeliyo inaanu hawsha nabadgelyada aanu ka sinaano maantana waxaanu galnay socotada ilaa Siigadheer xidhad qoonqaaniyo biyo boobo dhul badan baanu maray dhaqan iyo madaxba sida ay raxmadi tahay waanu soo ogaanay maantana socod badan baanu galnay waxaan ilaa gaadhnay meesha la Siigadheer dadkaanu dhex maraynay hadii laba kugu nabadgelyo tiilay dadkaanu wacyi gelinaynay sidaasaanu dabadna hawsha kormeer baanu labada degmo waa dhamay geel baa halkan daaqiyo ari baa lagu soo daadiyay ari buu iga jiray ma hayr nabadgelyada cidna ka barimaan mid Fadhigaab iyo jiida u dhaxaysa labada degmo kormeer iyo indhayn badan dalka roob iyo barwaaqo ka dhacday nimcadu waa waran tahay bulshada waxaan u sheegaynaa in dadkii wada yaalo oo si wanaagsan dadku u wada noolaado oo ay deris wanaagsan baa walba ahaayeen hadda way soo dhaxgaleen محمد سوت التلفزيون قرن كسمالان Celifin